daawadayaasha qiimaha lahow ku soo dhawaada barnaamijkan aan ka soo diyaarinay Soomaali ka gadootay xeryihii qaxootiga ee ay ku jireen maalinimadii Khamiista ee bisha ahayd 17 Juun 2004 ayaa Soomaali ku jirtay laba xero qaxooti oo ku taal waqooyiga waddanka Denmark ka dareereen xeryihii qaxootiga ay ku jireen iyaga oo u anbabaxay wadamada Denmark jaarka la ah dadkan Soomaalida oo badankood haystay waxa loo yaqaan negative-ka ama diidmada ayaa dhibaatooyin badan ka tirsanaya dawladda Denmark dadkan oo dhamaa ilaa 60 qof oo ay ku jiraan 6 hooyo oo dhalan 2 ilaa 7 ayaa markii ay yimaadeen boostejada tareemada laga raaco loo diiday inay tareenka raacaan dadkii oo boostejada taagtaagan ayaa waxaa yimid booliska nooca qalalaasaha ka hortaga halkaas oo ay dadkii xoog looga soo saaray boostejadii tareemada dadka qaar ayaa jug ka soo gaartay kulankii ay la kulmeen booliska hooyo iyo cunugeeda ayaa isbitaalka loola cararay dhibaatada ayaa ka bilaabatay kadib markii Denmark ay nin Soomaali ah oo xirada ku jiray ay ku cesheen Soomaaliya Muqdisho ninkaas oo Malaysia ay ku toogteen saacado yar kadib markii uu ka soo degay iyaguna waxay ka walwalsan yihiin cawaaqib xumada ka imaan karta haddii lagu cesho Soomaaliya guddiga Soomaalida ee magaalada Olbo ayaa u soo gurmaday dadkan dhibaataysan waxaan nagu kalifay inaan xeryaha ayaga ka dareero waxaanu nahay dad Soomaaliyeed oo ka soo qaxay Soomaaliya waxaana naga soo saaray waddanka iyagii hooye aan u dhalanay dhibaato dagaal mid taasoo ah mid ballaaran nana haysatay in badan imika sida caalamkuba og yahay dagaal sokeeyo oo waddanka ka jira aanay jirinna xukuumad Soomaaliyeed iyo boolis aan xakamayn karin dadka mooryaanta ah ee magaraysa dadka qaasatan shalay min darad warqada ay soo dhacday oo leeyahay masaariifta waa laga jartay hadda mushaarqaadka soo socdo masaariif malihid oo waxa leedahay kartoon maalin dhaweed booliska aniga way waceen waxay dhaheen haddaadna booliska la shaqeeynin oo aadna warqad saxiixin in lagu celinayo Soomaali oo lagu cadaadinaa ومحل ليسوا عليان دانيو إيجا بحي دهنا وانا إذن كبحي ما إن يعني أداني عيالك ينرفات ستان ونا دبتانا ديسوا عليسين ها هو داينا كو عددين أيام كو سوا عليني هذا أنا ورقة صحيح دون تتمركن عددين كسارنا أما سان هول مالجو علينا أما كرتونة قاعدين يودها لباسط سوق ليسا وحن دا العقد إذن كايس كلاني مسكلي يعني فرعي الكمبيوتر كلايك ساران دا عنقبتين تيوهسيني كقاضو wuxuu dhahay meel kale oo Yurub aad kartid mal anaga ayaa kuleed anagana waxaan awood u leenahay wadanka kuugu celino sidaas oo soo kala tagnay haddana ani lacagba ma bisi waayaba yaani dawladda Denmark haday waxay ii haynin in anigana yaani ay dhibaateeyeen ciyaalkayna ay dhibaateeyeen waan caalamka qaxootinimo weydiisto cunaqabateynta ay u hayaan iga saaraan sababtoo ay hooyaan ahay maalintii kartoon oo la soo tuuro aniga ciyaalkayga way aqliyeysteen waxay u baahan yihiin ciyaalka facooga waxay wataan درنا تدوحي هذا لا سكول وهذا هو بقول إلما وتانسي واسيي اللي مشاعر قاعدة مقطع هذا مثلا كرتونة ولا يسوطون يعني وحن وهاي مال عيالكي يعني مركو هو مسؤولي صارنتها نقنا وحن نقنا مركز أمينا يعني وحي ما كنت إسدلو أما يعني دمتوي وين سجيستو هذه دولة الدنمارك وحي هاينين دون تلاقي يسوي هذا يعني meel alla meeshii qaxootinimo iyo qaabilayso oo nafsadeedii nafsad ciyaalkayga ku amaan galayeen ayaan qaxooti weydiisana saas aan sheega sida ugu degdeg badan lacaqaadka ka hor hadaan jawaab helin waa baxaane ma joogay waxaan go'aansanay markaan ogaanay wadanka Denmark inay waxay noo soo wadaan inay jirin waxaan go'aansanay inaan wadanka aan isaga baxno maadaama ayna leeyihiin macnaha dhimashaan ka soo cararnay ayaguna waxay rabaan inay dilaan si ay noo dilaan ma yaqaanaan macnaha marka go'aan waxaan ku wada gaarnaa hadii aan nahay Soomaali xerooyinka qaxootiga ku jiro in aan wadankan isaga baxno wadan alla wadankii mataqaana dadka qaabil ee qaxootiga oo aan nabad ka helayno inaan aadna ayaan go'aansanay macnaha waxay dhaheen anagu booliska Daanishka daanahay waxa aan u dhalanay waa wadanka Daanish baan joognaa adigana Soomaali baa u dhalatay dilka kufsiga dhaca iyo boobka wax kasta oo adiga aad sheegaysa maanta wuu ka jiraa Muqdisho wax dhibaatana ma laha waad ku noolaan kartaa waxaasna waa wax caadi idin ah hadii la rabo hal lagu dilo ama hal lagu daayo Soomaali baa tahay adiga anaguna Daanish baan nahay Muqdisho waxaan imid 97 January sababta lagu sii waxay ahayd xalay Soomaaliya ayaa ka timid Soomaaliland kama imaan xalay dooga cajala maartay luqadda
luqadda marka waxay ahayd Soomaaliland ba ka timid marka xalay wadanka 14 kaga baxda 2002 ahayd Sweden man tagay Sweden waxay dhaheen maartay Denmark ku noqon Denmark man aad iska marka Ingiriiska aan ka soo noqdaado halka madana iska dibaadana xalay kaale marka station komeen ku yaala marka xireen Alliance iska baxay Belgium man tagay hadana Belgium waxaan joogaa dhowr bilood way soo celiyeen hadda waxaan wadanka Denmark ka haystaa laba negative diidmo marka maxkamadda iga siiyeen ay dhan wadanka inooga baxa waan ugu baxay wadanka Sweden ayaa iska diibay marka waxay soo dalbadeen waxay dhan wadanka Denmark dib ugu soo laabo marka ugu soo laabtay waxaan isku daynanbo waxba wareys horta ilmaayna yeelan markii hore marka halkan mid kaamkayga hore booliis baan dalbaday waan wareystaan maxaad ii soo celiseen waxay dhan warqad baa ku imaanaysa saxiix Soomaaliland ku celinay waxaan ka mid ahay dadkeena maalin ka qayb galay mudaharaadka dibada baan kala kulnaa anagoo ka bixday wadanka maxkamaddu haday saartay dad badan maxkamad saareen waxay dhaheen wadanka nooga bax kulli maxkamadda fursada ka baxday kulliye ama hore ka baxdaan saddex dadka raacda dadkeen raacay dib badan kala kulnaa nolodiida ana baxno waxaan xoog nagu soo celiyay kaamka dib kamid oo soo gaar waxa kamid ah dil waxa kamid ah Soomaaliya markaan joogno xabad iga dhacday lugta taarantay iga dhufteen oo inta kala hada dulal ku yaalo cunug yar dhulka ku dhufteen dib badan baan kala kulnaa dabeedna halkan nagu soo celiyay kaamka qasaba waxaan Denmarkan soo galay bishii afraad Yunis Xasan oo ah nin dhalinyaro ah ayaa ilaa iyo sanadkii 1993 raadinayay wadan siiya magangalyo qaxootinimo muddada 12 sano ayuu Yunis isku maray wadamo badan oo European ah 2000 ayaan imid Denmark oo waxaan ku noolaa 7 bilood markaas sharciga ii diidan waxay iska dhayn dalka iskaga tagay Sweden ayaan galay Sweden markaan galayna waxay u dhahan Denmark ayaa lagu celinaya oo degnaan jirtay Ahmed Farax Ducaale oo degan Denmark in ka badan 30 sano ayaa ka mid ahaa guddiga isku xilsaaray arrintan Soomaalida dhibaataysan ummaddu haddii ay wada shaqayso isku xiran tahay oo ay hal mabda ku doodayso xuquuqdoodu way u fududaanaysaa inay gaadho waqti ma ka qaato haddii ay doonteen marka horta waa idin hambalyeynayna haddaanu nahay bulshada Soomaalida ee ku nool Denmark gooni ahaan magaalada Aalbo ee aanu ka nimi waxaanu idin wadnaa hambalyo wanaagsan iyo in aad muujiseen Soomaalinimo sanadaha la soo dhaafay oo ilaa 3 sano aba waxa socotay in qaxootiga Soomaalida kaga yimaado dalkan Denmark dawladda Danish ay go'aan ka gaadhay in aan la siinin aqoonsi qaxootinimo taa waxay keentay muddadan dambe gooni ahaan dadka xiriyaha ku jiray sharciga loo diiday in hal loo xado oo looga saaro dalka Soomaaliyana dib loogu celiyo si sir ah oo aan adduunyada iyo dalka systemkiistoon aanu ka warhaynin waxa loo soo qoraa warqad diidma ah oo lagu leeyahay waa inaad dalka iskaaga uga baxdaa haddii aadan ka bixinna annaga ayaa si khasab ah kaaga tahriibin dalka oo ka saari Soomaaliya ayaana dib ugu celinaynaa arrintaas sida la og yahay waxa weeyaan arrin ka soo horjeeda oo aan waafaqsanayn dhaqanka adduunka maanta u yaala ee dhanka qaxootiga sida daraadeed ayaa dadkii Soomaaliyeed halkaan joogay arrintaas ayagoo ka argagaxay in dib loogu celiyo dalka ay ka soo qaxeen si naxariis darro ah ayaa waxay sameeyeen in ay ka gilgishaan oo ka doodaan oo ka qayliyaan annaguna haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed ugu dhow degan magaalada Aalbo ayaan waxaan u adkaysan weynay inaanu ku fiirsano waxa dadka haysta oo aanu sida daraadeed waxaanu go'aansanay in aanu wixii gargaar aan u gali karno inaan u garno in aanu la talino in aanu la socono xaaladooda adduunweynahana inta aan ku baahin karno aanu ku baahino halka ayaa arrintu ka soo bilaabatay maantana waxay maraysaa in daraato 17 bishatan labada xere ee ku yaala dalkan Soomaalidu ku jirtay gidigooda ayadoon qof kaliya ka harin ilaa 60 qof iyaga oo ah in ay ka soo kaceen oo ka soo bixin xeriyihii aanu geynay oo isla wada tagnay magaalada la yiraahdo Frederikshavn halka oo ay doonayeen inay ka raacaan markab u gudbiya dhanka Sweden iyaga oo ujeedadeedu ayna ahayn inay Sweden qaxootinimo ka doontaan oo qurahe doonaya Denmark intaan laga xadin oo aan dalkoodii si tuuganimo ah loogu celinin Denmark inay ka baxaan mar adduunyada halkii qabsataba hala gaadhay taas way suurtoobi weyday oo ciidamo booliis ah oo